asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay dhammaan inta soo boqon doontaa ama nala joogtaa dhammaantiin ma salaamantihiin. Waa anigoo ah walaalkiina maxamed dekow. Channelka hadda aad booqanaysaan ama aad joogtaana waa Starboy MD. Kusoo dhawaada. Channelkan wuxuu noqon doonaa channel kaliya aan kusoo gudbiyo dhacdooyinka dunida hadduu ilaahay yiraahdo. Insha Allah idinkana igu caawiya oo maxaa la dhahaa haddii qaarkiin waxyaaba dhacay story dhacday oo kale ila soo xiriira si aan usoo gudbiyo hadduu ilaahay yiraahdo. Aad ayaa u mahadsantihiin. Sheekadeena maanta sida thumbnailka ka soo aragtay TikTok ayay ka dhacday oo runtii TikTok-ga qaabab badan ayaa dadka ay usoo galaan dadna addicted ku noqdaan oo maxaa la dhahaa maba seexdaan maanta oo dhan kameradaas la wataa. Marka sheekadan waxay ku dhacday wiil Mareykanka jooga oo ama Mareykan ah Steve la dhahayo. runtii Steve ma ahan nin dhalinyaro ah laakiin adiga wuxuu u dhexeeyaa age-kiisa 40 ilaa 30 ilaa 40 u dhexeeyaa. family uu leeyahay waxaasuu leeyahay waana dadka TikTok-ga mar walba ku xiran. Marka maalin maalmaha ka mid ah ayuu gurigiisa qashin ka soo bixiyey. qashinkii asigoo u wada banaanka oo meel waxaa jirto oo qashinka lagu rido. marka waxay ku kulmeen oo ama asigoo qashinka ku ridaya ayaa naag kale oo deriskiisa ah meesha isku arkeen. marka asiga markuu qashinka tuurayay wax ma duubeynin oo maxaa la dhahaa caadi wuxuu iska ahaa nin qashin banaanka qashinkaas tuurayay keliyo ahaa bas. naagtii waxay isdhaafsadeen uu soo baxay. naagtii waxay isdhaafsadeen oo caadi ah oo muuqaal ah ayuu meesha inoo tagay sheekadii meesha ka sheegay. marka naagtii ayadana way aragtay maxaa la dhahaa maalin kadib TikTok-giya dadkii waxay kusoo qorqoreen maxaa la dhahaa naagtan oosaan agshay because dadkii naagta ma aysan arkin Steve-ka keligiisa leeyahay. marka dadkii waxaa dhahay way meesha ugu soo qoreen commentiga runtii haddii aad tahay YouTuber haddii aad tahay TikToker haddii aad tahay commentiga haddii aad akhriso runtii waxaa arkaysaa dad xun iyo dad fiican labadaba ay ku jiraan. marka don't expect adi ama mar walbo ha filanin in lagu dhaho oo khataraa tahay ma anfacayo because qof xunna wuu jiraa qof fiicanna wuu jiraa. marka naagtan macnaha asiga deriskay waay waxaas videogii yaraa oo macnaha videogaas wuxuu ku sheegay meeshii anyway dadkii waxay codsadeen in qofka oo kamerada oo ku duubto ka dambeeyo arko bas. muddo kadib haddana way kulmeen oo caadi haddana sidii oo kale dhacday qashinkii meeshii. marka tookadan naagtan tanay banaanka kala heedo way bixaysa gaarigeedii ku jirtay asigana qashinka tuuray tookadan kaamiro wataa telefonka. marka iyadana waxay og tahay in oo commentigaas way arkaysaa maxaa la dhahaa isheeg videogana way daawatay bas. sheekadii Steve markay bilaabataybo kaamradiisu la soo baxay dhag ayadoo ka duwan ayadoo caytamayso maxaa la dhahaa waa ogahay videogaada muu soo post gareyn oo TikTok-iyo kale. marka ogaa waxaa jooga dad waalan oo waxay rabaan kusoo qoraayo. marka haddii ayagaan raaligelina haddii aad dhahdo dhibaad gelaysaa. okay tookadan islaantii deriskiisa ahayd video ka haya videoga soo dhigay. videogii intaasoo malaayiina daawatay qaarkood markaas naagtan videoga mar hore aragtay oo macnaha videoga ka horeeyay oo soo dhigay inay deriskiisa haysaan macnaha dadkiina ay wax soo dhaheen ayada marka waxaan oo dhan way sugaysa. kaamiradan marka laga duubayayna waxay dhan isku wada haysa. marka saaxiibkaagana mar walba wuxuu target gareynaa dadka negative-ka ah dadka dhaha iska dhaaf waa qof weyn iyo waxaas dhan mar walba wax loo target gareynaa qofka xun ku hadlaan bas. dadkii waxay dhaheen islaantan in la qaarjiyo islaantan waxa waaye deris fiican ma ah in la cuno waaye saas miyaha okay belo
saaxiibkaaga xaaskiisa anaa sheekadan wax kuma lahan marka sanadka ay dhacdayna waa hadda ma ahan wax oo longa ah ma ah 2019 dhamaadkiisu ahaa bas mamamay 20 wuxuu ahaa sanadkana waa 2020 dhamaadkiisa August November meelahaas oo marka islaantii ninkaan maskaxdiisa wuxuu ku haystaa waxay usoo qoro naagtan waxaa waaye la habe waaye la kala tuur arrintan ma loo dulqaadan karo okay ninkaan xaaskiisa wax ay ka ogtahay malahan waxay aaday hooyadeeda oo degan California guriga marka keligiisa uu noqdo ninkaan maskaxdiisa waxaa gashay islaantan oo ku cacaysay adina dawad saaxiibo islaantan ku cacaysay dadkan ku dhayn inuu cuno waayo bas wixii oo balangareeyay oo waxba mindi balaayo saaxiibka islaantiyo dadaba galay kasada focuskiisa TikTok dhan waaba ka wareegayo focuskiisa islaantan in la cuno wuxuu balangareynayaa markuu dilaayana inuu kaamera ka doobo dadwaalana joogo adduunkan marka waxaan kaa codsanaa please haddii YouTube ama TikTok ama Instagram wax soo dhigto u diyaar garoow sida time aad u gelisay videogaaga aad soo duubaysay aad time u gelisay aad isku naashtay aad nalal iyo balaay dhar fiican soo xirxirtay waxaa u diyaar garoowaysaa dad saa jecel aad samaynaysid inay ku aan beeranaysataa dad kaa hor soo jeesanayo ku dhahay maxaa marka labadaba inuu diyaar garowdaa bas saaxiibkeena habeenada ka mid ah islaantii gurigeeda uu galay inuu ku dilo rabo islaantii ilaahay amarkiisa maba jooginba maalinta kale subaxdii xaliyo dhan aanan seexanin ciil dartiisa naagtan oo barnaamijkii ka cuntay iyo aroortiiyo naagtiiyo qashin banaan ku daadinayso ala soo baxay kaameradii taleefanka waa la haystaa geedii kugu xirneed markaasoo mindidii oo minshaarta lahayd 5 mar dhakab asigoo duwaayo dhab marka maxaa lahaa ii sheeg videoga ii sawiro waa soo dhigi lahaa laakiin YouTube mana rabay in oo violence iyo copyright iyo balaayadaas laakiin sheekada wuxuu sameeyey videoga marka uu soo qaaday TikTok okay mar al markuu dilay kaamirada islaantii dhulka jir mujida waatana waa dilay ماشي TikTok iyo dhigay argagax booliiski iyo dhul ka imaadaan saaxiibkaa waa la faraxsan yahay islaantii waa cunay macnaa somehow dadka guryaha ku xiran oo ama addicted ku noqday TikTok ama YouTube macnaa waxyaabo oo waxaa ka suurtoobaya aan caadi ahaynin naagtii dilay TikTok iyo soo dhigay booliiskaa imaaday waa la xirayaa waa balska faraxsan yahay marka sheekada waxay noqotay xabsiga in la geeyo haddana wuxuu sugayaa oo weli wuu xiran yahay asiga laakiin wuxuu sugayaa dee in oo forever I think malis dilaa umaleyna maraykanka laakiin waa maxkamad suuga laakiin wuu xiran yahay sheekada intaas ayaan kusoo gabagabeynaya oo waxaan leeyahay please TikTok YouTube meesha meel walba aad videoga dhigaysid please waxaad u diyaar garowdaa negative iyo positive video markaa meel soo dhigaysid waxaa u diyaar garowdaa negative iyo positive so marka dadka wax xun oo kusoo qoraayo hana ka tirtirin meeshooda ku daa
okay waa tahay waa walaalkiin maxamed deeko channelkan runtii waa cusub waa video ugu horeeyay oo aan sameeyo aan soo geliya please waa lagu baahan yahay in caawinaad aad samaysid like isar haddaa share gareyn kartid share garey haddii sheekada ku anfacdayna please subscribe isar si aad ugu mid noqotid videoyada aan soo gelin doono hadduu ilaah yiraahdo laakiin channelkan keliya wiigii hal mar ayaan sameynaa channelkeena kale Blue Star Media kaas ayaad maalin walba igala socon doontaa hadduu ilaah yiraahdo maxaa yeelay videoga editing iyo sheeko dheer u baahan yahay ma ballan qaadi kari marka maalin walba inaan kuu soo geliyo aad ayaa umahadsantahay walaashay walaalkay intaan videogan waxay ugu kulmi doona waxaa idinkaga tagayaa sida ay nabad geliyo please sheekooyin oo khatar ah oo dhacaya been ma jirto oo dhacay haddaa haysid ama aa maqashay please ila soo xiriir Instagramka aad ayaa umahadsantahay nabad